duhur wanaagsan daawadayaal waa xuriga xaqiiqo oo aad kala socotaan Alool TV wararka maanta waxaanu idiin haynaa looma fadhi Mareykanka oo ogaaday hubka Ukraine uu siiyo oo la iibinayo yaa laga iibiyay sidee se lagu soo ogaaday intaba barnaamijkan ayaad ka daawan doontaan taariikhdu waa 19 November 2022 qawaya soo dhawaada Ukraine waxa ay suuq madow ku iibinaysaa hubka ay ka heshay reer galbeedka taas oo ay ugu wacan tahay awoodda yar ee ciidamada Kiev ee ay ku isticmaali karaan sababtoo ah tababar la'aantooda caqabadaha saadka iyo tirada ciidamada qalabka sida ee Ukraine oo yaraaday sida waxa yiri la taliye hore ee Pentagon-ka Karen Kowalski oo u sheegtay warbaahinta Sputnik wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu ayaa hore u sheegay in hubka ay reer galbeedku geeyaan Ukraine uu ku dhamaanayo suuq madow oo ku faafaya galbeedka Aasiya iyo wadamo ka tirsan qaaradda Afrika hadallada Moscow iyo Pentagon-ka kaliya maaha sheegasho maadaama Kiev laftigeedu ay taageertay aragtidan iyadoo qiratay in gargaarka shisheeye ee loogu talagalay Ukraine mar hore la iibinayay agaasimaha xafiiska amniga dhaqaalaha ee Ukraine Fedem Melenik ayaa Ukraine 24 u sheegay horaantii bishan in hay'addu ay ogaatay kiisas soo noqnoqday oo ku saabsan iibinta qalabka militariga reer galbeedka iyo gargaarka bini'aadminimo ee soo gaadha Ukraine Mareykanka ayaa bishan horaanteedii diray saraakiil u xil saaran dabagalka hubka ay geeyeen Ukraine kadib markii ay soo bateen xogaha arrintan fashilinaya dowladda Jarmalka ayaa maalintii shalay oo taariikhdu ahayd 18 qoraal ka soo baxay gudida maaliyadda ee dalkaas ku sheegay in 27 October ay heleen xog sheegaysa in hubka dowladda Ingiriisku ay geysay Ukraine ay ku qabteen jabhadaha ka dagaalama dalka Mali hubka Ingiriisku bixiyay waxay ku sheegeen M109 qoriga ah oo uu ka dhaco xabadda ama gantaalka 155 mm xajgiisu waana hubka is wada korneelka hore uga tirsaneed ciidanka cirka ee Mareykanka oo hadda howlgab ah Karen Kowalski ayaa iyadu sheegtay iyadoo hadalkeeda sii wadata marka la eego in alaabtan ay yihiin free ama bilaash faa'iido weyn ayaa laga sameyn karaa iibinta waxa aan loo baahnayn ama aan si fudud loo isticmaali karin awoodda Ukraine ee ah in laga faa'iideysto hadiyadan waxaa dhaliyay amaba xadiday tababar la'aan caqabadaha saadka iyo tirada ciidamada Ukraine oo sii yaraanaya haddii si kale u niraahno waxay sheegtay in ciidanka Ukraine aanay tababar u lahayn kuwa kamid ah hubka ama qalabkan soo gaadhaya oo aanay hore xiriir ula lahayn amaba tababar u haysan iyadoo dagaal lagu jirana aan tababarkooda laga wada geyoonayn taas ayaa waxaa dhacay in la siiyo hub aan aqoonba u lahayn markaas hubkii marka isticmaali kari waayeen inay isdhaafiyaan ayay go'doonsaneen iyadoo qaar ka mid ah warhaha soo galaya aysan dhameystirnayn Kiev si fudud uma isticmaali karto qalab kale oo ma hirgelin karto xeeladeeda ama aqoonta ay ciidankeedu u leeyihiin agabkan cusub ee sida degdega ah gacantooda ku soo galay Kowalski ayaa sidoo kale iftiimisay sida la yaab kale in qaar ka mid ah hubka Ukraine ay iibinayso ay u badan tahay in uu ugu dambeyntii u galo gacanta ciidamada qalabka sida ee Ruushka iyo xulufadeeda waa looma fadhigay amaba xogtii ugu cajaa'ibsaneed ee intii uu dagaalkani socday soo baxday baa la oran karaa hubka Ukraine ay siinayaan reer galbeedku ayaa ciidamada Ukraine markay isticmaali kari waayeen qaar ka mid ah suuqa madow ka iibiyeen suuqa madow markay ka iibiyeen lama maamuli karo ama lama cayimi karo gacanta ku dambeyn karaan marka waxa dhici karta in hubka Mareykanku siiyo Ukraine ay ku dambeeyaan gacanta Ruushka markaasna iyaga dib loogu soo isticmaalo waa cajaa'ibkiisa la oran karaa xitaa hubka Kiev u isticmaali karo goobta dagaalka ayaa ugu dambeyntii la iibin doona ayaa sarkaal Kowalski ay sheegtay hubabkan waxaa ka mid ah hubabkan la iibinayo waxaa ka mid ah kuwo aad u waxtar badan oo Mareykanku keenay sida gantaalada Javelinka iyo gantaalada
M142 HIMARS nidaamyada gantaalada dhaqdhaqaaqa sare iyo nidaamyada gantaalada badan ee M270 waxay u badan tahay inay ka soo muuqdaan hubkani ka soo muuqdo farantiga dagaalka iyada oo aan isticmaalaynin ciidamada Ukraine balse ay isticmaalayaan kuwa ay ishayaan. Ukraine ayaa balaayiin dollar ka heshay hub looga deeqay Mareykanka iyo xulafadiisa sida Ingiriiska iyo wadamada kale ee NATO dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Maamulka Biden oo keliya laga bilaabo 1 Luulyo wuxuu ballan qaaday ku dhawaad 7 bilyan lacagtaas oo ilaa hadda 2.8 bilyan lagu wareejiyay xukuumadda Kiev. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sida ay sheegtay.